xilli muddooyinkan dambe magaalada Muqdisho ay ku soo badanayeen dib u dayactirka xarumihii adeega bulshada ayaa maanta maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya hay'adda Danguud waxa uu xadhiga ka jaray xarun cusub oo loogu talagalay in lagu barto waxbarashada lacag la'aanta ah taas oo laga hirgeliyay degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarzan oo intaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay wasaaradda arrimaha gudaha in ay cadeyso booska arrimaha federalismka ee ay magaalada Muqdisho ku leedahay maamul samaynta dalka. wuxuu noqonayaa iskoolkii ugu horeeyay ee noqda lacag la'aan. waxaan leenahay magaaladani dib bay u soo kabanaysaa xaggii dib u dhiskay dib uga soo kabanaysaa xaggii shaqo abuurka iyo horumarkay dib uga soo kabanaysaa xaggii amniga ayay dib uga soo kabanaysaa xaggii caqliyadda ayaa weli noo hartay sababtoo ah maskaxda shacabku waxay u burburtay sida ay u burbureen dhismooyinkii iyo jidadkii iyo kaabadihii dhaqaale ee waddanka siday u burbureen ayaa maskaxdii ummadduna u burburtay ayada naftigeeda waxaanu kaga baahan yahay in dib loo abaabulo oo dib loo dhiso. محمد بلقيل صمصات مقالة مقدشو.